Assalaamu calaykum. Xasuustii nabad sugidda ciidamada Soomaaliya NSS 1970. Sheekadan waxaa qoray Faarax Xiirane. Anigoo wata magac iyo meeqaam qalaad iyo aqoonsi dal kale ayaa markii saddexaad aan gaaray Itoobiya kadib duulimaad 8 saac ahaa sanadihii u dambeeyay 1970. waxaan aqalkiisa nagu casuumay wasiirkii garsoorka Itoobiya ee xilligaas. daqiiqado kadib waxaa soo galay gabar gu'eeda 25 aan ku qiyaasay oo qori iyo qalab ciidan ku joogtay. intayna salaantay ayay qorigii aabaheeda dhabta u saartay, kadibna aqalkii ayay hore u gashay. waxaa igalay shakigii iigu badnaa oo ahaa armaa lagu aqoonsaday inaad tahay Soomaali. kaaga sii darane sarkaal ka tirsan ciidamadii nabad sugidda ee qarankii Soomaaliyeed oo qorshaha aan ku joogay Addis Ababa dejinteeda iyo diyaarinteedii iska laha ayaan ka welwelay. waxaana hubay in haddii in yar la ituhmo qoortayda dhinac loo isuraayo, waanase u soo bareeray oo beryahaasi waxaa igu weynaa qaranka Soomaaliyeed, qiimo gaarna ii lahaa. wasiirkii garsoorka Itoobiya intuu dhoole caddeeyay ayuu yidhi, gabadhaydan iyo qaar kaloo asaageeda ah waxay dalkan u qabteen wax aysan jiilkayna qaban waayeen, waxaana lagu dhigi doonaa baalisha taariikhda ah. wax yar kadib inantii oo dowrkeeda dumarnimo muujinaysa ayay soo dhigtay cabitaan iyo horaadyadii lagu fuudi lahaa. intaa kadib hadal dheer oo u badnaa haaraanka iyo hagardaamooyinka loo maleegayo dalka aan u dhashay una dhaartay inaan u dhinto, ayuu si xushmad ka muuqata uga codsaday gabadhiisa inay gaarigooda laadadaha igu qaado ina geyso hoteelkii aan degnaa, iyo haddaan doonayo inaan xoogaho meermeero magaalada. anigi iyo gabadhii waxaana dhex maray hadal dheer oo u badnaa haasaabo iyo hadal male ii galay. ayaan weydiiyey gabadhii halka ay heeganka kaga jirtay. waxayna tiray jigjigiya dhulka ku heeran, xilkii difaaca hormuudkeedii ku jira. haatana fasax gaaban ayaan ku imid oo waa anigii dabkii hadda dhigay. anigoo qarsanaya ciilka iyo carada iga buuxda ayaan iray, ma dagaal ayaad u joogtaan mise difaac keliya? intay qosashay ayay tiri, xamar ilaa iyo xeebaha berbera ilaa iyo banka diyaaradaha dagaalka ilaa aan taabanno. waxaan ku dhaaranay inaan qoriga dhigin, haddaan dhimanana dhashayna ayaa qaadi doonta inta laga xaqiijinayo riyada qaranka Itoobiya. intaan garabka gacalbeeneedka ka saaray ayaan ku idhi, sawtii madaxdii Afrika ku heshiiyeen xadka uu ka tagay gumaystaha, dowlad kastana ay ku ekaato halkaas. intay isoo eegtay ayay tiri, dunidu way naga ogoshahay inaan qabiilka Soomaalida ee naga falaagoobay aan xoog iyo xeeladba ku soo ceshino. waxaan ku idhi, laakiin sida ay qorayaashu taariikhdu weriyaan, dadkaasi Soomaalida ah waa qaar aan la loodin karin oo dagaalka ku daran, naftuna aysan qiimo u lahayn. haddii ay wax leeyihiin xoog loogu qaato waa qoom daran. adiguna gabar qurxon ayaa tahay, yaysan naga kaa dafin ee xoog isu ilaali. anigoo ku daray dhool caddeys been ah ayaan daaqadii gaariga iska furay. intay iga soo daba degtay ayay hore ii sii raacday ilaa aan ka gaarnay albaabkii hoteelkii aan u hooyan lahaa habeenkaas. muddo gaaban kadib waxaa dhammaaday hawshii aan u joogay Itoobiya, anigoo ku joogay magac iyo meeqaam qalaad. waxaana ku soo noqday xamar iyo xaruntii dalka. muggaan waxaan ahay Farxaan Xiirane oo ka soo noqday tababar dhinaca ciidanka ah oo ugu maqnaa dal aan saaxiibo nahay. sidaas ayaana loo sheegay saraakiishii hoose iyo shaqaalihii dharaarahaas aan wada joognay. wuxuu igula ballamay taliyihii nabad sugidda ee Soomaaliya ee xilligaas inaan warbixinta aan sido ku siiyo hotel Juba. salaadii maqrib markaan ku soo tukaday masaajidka Shicla Suufi ayaan soo eriyey garaashiido gaadiidkii dowladda ahaa oo si un iigu soo wareegay. anigoo isle waad ka dahday ayaa jidkii Kolombiya iyo waddada Kismaayo halkay isaga darmaan iiga banjartay. kadib intaan dhinaca jidka ugu saaray gaarigii ayaan soo lugeeyey anigoo neeftuuraya ayaan soo galay hotel Juba oo aad habeenkaasi moodo inay tahay ciid. gabar shaqaalaha ka mid ah ayaan weydiiyey xaalka jira caaba. hebel ayaa aroosaya, waa wiil ina wasiir ah. dhowr wasiir oo ka mid ahaa golihii wasiirada ayay indhahaygu qabteen. xoogaa kadib ayuu soo galay taliyihii ciidamada nabad sugidda. isagoo si u degdegsan ayaan dhinac shaaha kula cabay. warkii markaan u dhiibay intaa ugu cusleed ayuu furihii gaariga ka qaatay wadihii, keligiina kaxeeyey. waa berigii aan isugu imaano xafiiska hagaag jaalle. sheekadan waxaa qoray Farxaan Xiirane oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamadii nabad sugidda ee NSS 1970 ilaa iyo 1991. NSS
waxaa laga soo gaabiyey National Security Service oo ahaa ciidamadii nabad sugidda iyo sirtoonkii Soomaaliya xilligii dowladdii Maxamed Siyaad. xarunta NSS waxay ahayd Muqdisho intii u dhaxaysay 1970 ilaa 1990 wixii ka dambeeyay dagaaladii ahliga ahaa ee Soomaaliya. 1991 ayay howlgab noqotay NSS, waxaana sanadkii 2013 dib u cusbooniyey dowladda federaalka ee Soomaaliya, magaceena u bedeshay NISA oo laga soo gaabiyey National Intelligence and Security Agency.